kulan waxaan wanaagsan saaxiibada ku xiran YouTube-ka Hadema Show fadlan nagu soo biira subscribe saara YouTube-ka asxaabtii hore noola joogtay waa ku mahadsantiin soo biritaankeena muuqaalka like saara si asxaabada u gaaro commentigana aragtidina noogu soo qora si dhiirigelin ay noogu noqoto sheekada aan soo qaado doono waxaan ka soo xushay buuga gulaha dadka guuleystay waxaana ka hadli doonaa sida uu ku guuleystay ninka iska leh company-ga Alibaba.com magaciisu waa Jack waa muwaadin u dhashay dalka China halkaas oo ku guuleystay inuu ku biiro kuleejka tiraka 3 jeer ugu dambeyntii wuxuu si diriqi ah ugu guuleystay imtixaankii isagoo dadaal badan bixiyay wuxuu isku dayay inuu shaqo ka helo maqaaxi cuntada lagu kariyo laakiin badankoodu waa ay diideen inay shaqada galiyaan kadib markii uu ka codsaday meelo badan oo shaqo leh balse codsiyo badan oo la baxay waa loo diiday ugu dambeyntii waxa uu ku biiray shaqada macalinimada taasi oo bixin jiray luqadda Ingiriiska isagoo bishii qaadan jiray jeeg lacag ka yar $10 kahor inta uusan luqadda macallin ka noqonin wuxuu aadi jiray 45 daqiiqo meelaha dadka isugu yimaadaan dalxiisayaasha ajaanibta ah halkaas oo dadka dalxiisayaasha si luqadiisa u hormariyo halkaas kula soo sheekaysan jiray jeekama uusan qanacsanayn shaqadiisa wuxuu ka go'need inuu ka guul gaaro ugu dambeyntii wuxuu u guuray dalka Mareykanka si uu uga helo shaqada uu ku haysto dalka China mid ka fiican dambeyn waxa uu bartay cilmiga kombiyuutarka iyo internetka wuxuu aasaasay website-ka loo yaqaan Alibaba.com kaasi oo sameeya ganacsiga shirkadaha si online ah ay isku dhaafsadaan Alibaba wuxuu noqday ninka ugu taajirsan dalka China waxaana loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 25 ganacsade ee ugu awood badan qaaradda Aasiya Alibaba wuxuu noloshiisa saheed mid aad u adag ma haysanin abaqaniya mana haysanin nolol fiican balse waxaan u jihaaday nolosha maruu la hadlayay dhalinyarada adduunka ayuu wuxuu yiri dhalinyaradu waxay wax walba u yihiin xal waxaana siinayaa waanadii aan siin lahaa nafteyda ma jiraan wax fudud markaan luqadda Ingiriiska dadka barayay mana haysanin lacag ugu filan 3 jeer ayaan ku dhacay kuleejka ugu dambeeyna waan guuleystay ku bixi noloshaada waqti waxa aad bixiso waxa ugu wanaagsan waqtiga iyo dadaalka شواب ددلوه نفتهيد الليلة نفتي سديدة شواب ددلوه نفتهيد الليلة نفتي سديدة ماني دخسك هاجر سوغيها ماني دخسك هاجر سوغيها